ilaahay ninka keliya uu tusaale ay ugu soo qaatay ninkaa weli qisadiisa ma maqashay waa marka uu ilaahay leeyahay famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhas aw tatrukhu yalhas. ninkaasi xilligii nabi muuse raggii ugu cilmiga badnaa buu ka mid ahaa. qisadaani runtii waa qiso aad iyo aad u layaab badan, waxayna u baahan tahay in si qoto dheer aad u dhuuxdid. dhammaysa muuqaalkan. intaan mawduuceena bilaabin fadlan muuqaalkan like inoo saar sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa. kuna soo biir kanaalkeenna xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. ilaahay waxa uu inooga sheekeeyey mid ka mid ah culimmadii ugu waaweynaa ee xilligii nabi muuse noolaa. ninkan cilmi badnaantiisa waxaad ku garanaysaa isaga waxaa cilmiga ka qaadan jiray 12,000 oo arday ah. ninkani adduunka saahid buu ka ahaa, waxaana lagu yaqaanay alla ka cabsi badan, nin dhowrsi badanna wuu ahaa. intaa waxaa u raacday ninkani waxa uu ahaa mustajaabu dacwa. ninkaasi ilaahay waxa uu weydiisto waa ka aqbali jiray. nimcada ninkaa la siiya waxa ugu weynaa ilaahay waxa uu baray sirtaasoo dadku aysan aqoon. sirtaasi waxay ahayd magac waxaa jira haddii ilaahay lagu baryo oo ilaahay waxa aad ku bariday uu ku siinayo. ninkani dad badan ayuu ilaahay ka fadilay, waxa uuna ninkan noolaa xilligii nabi muuse. magaciisana waxaa la dhahaa balcaam binu baacuura. ninkaasi waxa uu ku dhashay kuna barbaaray dhulkii weynaa ee shaam. qowmka uu ka dhashayna waxay ahaayeen binu kancaan. asalkoodana waxay ka soo jeedeen ciraaq iyo dhulka baabil la oran jiray. nabi muuse oo reer bani israa'iil wada ayaa u soo socday dhulka iyo shaam. kancaaniyiintii waxay u maleeyeen in dhulka laga saarayo oo dhulkoodii hore ee baabil iyo ciraaq loo celinayo. sidaa awgeed way cabsadeen wayna argagaxeen. intaa kadib waxay u soo ordeen ninkan aan ka hadlayno ee balcaam, waxayna ku yidhaahdeen nabadbaadi, waa kan nabi muuse dhulkeena shaam soo gelaya, wuxuu rabaa in dhulka uu naga saaro. balcaamow ina badbaadi, qoomkaagii baan nahnay ee maantaan kuu baahan nahnay ina badbaadi. nabi muusena waxa uu wataa ciidan badan oo aan layska celin karin. markaasuu ku yidhaahdeen marka maxaad iga rabtaan? waxay ku dhaheen waxaad tahay nin ducadiisa la aqbalo oo ilaahayna uu jecel yahay ee nabi muuse iyo ciidankiisaba habaar. markaasuu balcaam aad u naxay, wuu yaabay. waxa uu ku yidhi warba'a musiibo idinku dhacdaye, ma nebigii ilaahay ee nabi muuse miyaan habaari karaa? ma waxaad rabtaan in uu ilaahay ii caroodo? ma waxaad rabtaan gaal inaan noqdo? ma waxaad rabtaan inaan ka mid noqdo dadka ugu liita xagga ilaahay anigoo awalba xagga ilaahay layga jeclaa? ma nebigii ilaahay ee nabi muuse miyaan habaari karaa? sow ilaahay ii caroon maayo? qoomkiisiina dhinac walba ayay kaga yimaadeen, way ka codsadeen, way ku celceliyeen. isagana wuxuu dhahayay hooga, ma nebigii ilaahay baan habaari karaa oo malaa'igtii ay la socoto oo weliba ay la socdaan dadkii mu'miniinta ahaa? ilaahay ducadayda wuu iga aqbalaa, ka waran haddii aan nabi muuse habaaro, sow hooygayga naar noqon maayo? iyagiina kama aysan quusan, waxay ku dhaheen hanti badan baan ku siinaynaa, hablo badan oo kuwa ugu quruxda badan ah baan ku siinaynaa, madax baa noo noqonaysaa, ee hal mar nabi muuse iyo tolkiisa reer bani israa'iil habaar. ninkii wanaagsanaa ee balcaam dhinaca adduunka ayaa looga yimaaday. awalkii hore wuu diidayay, laakiin hadda waxa uu bilaabay inuu ka fakaro inuu arrintaa ku dhaqaaqayo in kale. iimaankiisii buuraha ka weynaa baa daciifay. ninkii laba dooqba u soo baxday. ma ilaahay baad ka tagtaa oo shayddaan baa raacdaa? ma iimaankaagii quruxda badnaa baa ka tagtaa oo gaalnimaad doorataa? ma aakhiraad ka tagtaa oo adduun baad doorataa? ugu dambayntii maal ayuu doortay, adduun ayuu aakhiro ka doortay. khalaas, balcaam way u dhammaatay. way fitneeyeen qoomkiisii, diintiisii wanaagsaneed ayuu gaalnimo ka doortay. waxa uu yidhi waan habaartamayaa. wuu soo dhaqaaqay, qoomkiisiina way soo raaceen. waxa uu fuulay dhinaca buurtii nabi muuse ka xigta ayuu fuulay. waxa uu doonay inuu habaaro. ninkii marka uu damco inuu nabi muuse habaaro wuu awoodi kari waayey. ilaah ayaa wax walba awoodee carabkiisii buu beddelay.
habaar buu isdhahaa suwuu u duceeyaa habaar buu isdhahaa suwuu u duceeyaa tolkiisa kancaaniyiinta u ducay buu isdhahaa suwuu habaaraa markaas bay ku dhaheen war maxaa kaa khaldan sow uma jeedo waana habaaraysaaye nabi muusena waad u ducaynaysaa maxaa kaa khaldan markaas waxa uu ku yidhi wallaahi ma awoodi karaayo carabkan ilaahay baa maamula siduu doonuuna ka yeelaa markaas waxay ku dhaheen hadda maxaan samaynaa nabi muuse tolkiisa way noo imaanayaan dhulkay naga saarayaan maxaan samaynaa ninkii balcaam ahaa wuxuu noqday shayddaan kuwii ugu weynaa fikradda uu keenayo bal eeg xumaantiisii ayaa heerkaas gaadhay markuu ilaahay qur-aan kaga warramay waxa uu leeyahay fa atbacahu shayddaan shayddaankii baa dabagalay buu ilaahay ninkaas ka warramay balcaam baa loola jeedaa fa atbacahu shayddaan shayddaankii baa dabagalay waxaan arki jirnay dad shayddaanka dabagala laakiin ninkan shayddaankii baaba dabagalay cajiib fikradda uu keenay bal eeg waxa uu yidhaahday khalaas way ii dhammaatay diintaydii waad iga fitnayseen ilaahayna wuu ii carooday falkan aan sameeyey dartiis imtixaankii uu ilaahay imtixaanayna waa ku guuldaraystay hal arrin baa samaynayna oo kaga hortegaynaa nabi muuse tolkiisa waan khiyaamaynaa waxaan samayn doonnaa dumarkeenna kuwa ugu quruxda badan ayaan u soo labisaynaa weliba dhar ku dheggan oo jirkooda muujinaya ayaan u xidhaynaa waxaan ku fasaxaynaa reer bani israa'iil nabi muuse tolkiisa ku fasaxaynaa sinada iyo xumaanta ku faafaysa mar haddii sinada iyo xumaanta ay ku faaftana malaa'igtu way ka tegaysaa ilaahayna wuu caroonayaa sidaasaan kaga hortegaynaa sidii bay sameeyeen nabi muuse nin baa u yimaaday oo gabar aad u qurux badan wata waxa uuna ku dhahay muuse waxaad leedahay gabadhaani xaaraan bay kaa tahay taasi kaa yeeli mayno markaas ayuu reer bani israa'iil dhex galay xumaantiisiina halkaasuu ka bilaabay ninkii ilaahay reer bani israa'iil daacuun buu ku saliday ilaa ay daacuunkaasi u dhinteen 70,000 oo qof nin la yidhaahdo fanxaas ibnu cisaar ayaa arrinkii maqlay labadii xumaanta samaynaysa ayuu seef u soo qaatay seeftii buu la dhacay wuuna dilay markaas buu yidhaahday ninkii fanxaas ahaa ilaahow qofkii kugu caasiya sidaas baan yeeli doonnaa oo waan dilaynaa ilaahayna daacuunkii buu ka kor qaaday dadkii way caafimaadeen fitnaddii ugu horraysay ee reer bani israa'iil lagu halaago waxay ahayd dumarka nebigu sal alla alay slam waxa uu yidhaahday ilaahay ka cabsada dumarkana iska ilaaliya fitnaddii ugu horraysay ee reer bani israa'iil lagu halaago waxay ahayd dumarka ilaahay isagoo qisada tan inooga sheekeynaya suuradda acraaf aayadda 175aad waxa uu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون